wasiiru dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ay weheliyaan taliyaha ciidanka dabdamiska iyo sidoo kale agaasimaha fulinta ciidanka dabdamiska Soomaaliland ayaa maanta isbitaalka internationalka ee magaalada Hargeysa ku booqday xubin kamid ah ciidanka dabdamiska Soomaaliland oo ku dhaawacmay gurmad samata bixina kadib markii dab qabsaday guri ku yaala xaafadda State House-ka ee magaalada Hargeysa oo howlgalkaasi uu ka soo gaadhay dhaawac sababay in ku waayo mid kamid ah labadiisii indhood ugu horeyn mid kamid ah ehelada Guuleed Maxamed Aadan oo halkaasi ka hadlay ayaa mas'uuliyiinta ciidanka dabdamiska iyo guud ahaanba xukuumadda Soomaaliland uga mahadnaqay dadaalka ay mar walba la garab joogaan marka horeysa horta aan waxaan ahay ehelka ninkan nabarka la yeelay kunahan gabadha ay u sheegeen madaxda hore oo aan dhalinyaro ah oo ku waayay ishiisii iyo maxaan ku yiraahdaa meelo kale nabarka ka yeelaan oo iska jiraan hayar yaraadaane laakiin de loo calaacali baayo waxa weeyaan dalkiisii uu wuxuu noqday oo hadii la yiraahdo mudada wax uu ahaa ta kale waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qoladan dabdamiska taliyaha agaasimaha dhalinyaradan kale iyo wasiirka amniga oo isaguna booqashadan sameeyay wasiiru dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye iyo taliyaha ciidanka dabdamiska qaranka Soomaaliland gaashaanle sare Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaa Guuleed Maxamed Aadan Ilaahay uga rajeeyay caafimaad taama waxa booqasho rasmi ah aan ugu tagnay inankii askariga ahaa ee ku cawarnay howlgalkii bishii 14keedii aan ku tagnay State House-ka dadweynaha markaan idin soo gurmano waxaan idin soo gurmanaa inaanu idinamad ka nabadgelino dabka dadka iyo hantidoodaba markaanu meesha nimaadno had iyo jeer waxaan ugu dhaca waxyaabo aad u fara badan oo kamid yihiin inay dadweynihii meel gawaaridu istaagaan aan hogeyno in gudaha markaanu galno aanu ka baqtiin kari weyno dadweynaha awgood markaan ku ninaano waa noo baneeya ama jidka noo furana wayna shiidaan oo dagaal iyo gacan hadal bay sameeyaan wixii imika ka dambeeyana gacan bira ayaan ku qabanaa wixii rabshad sameeya qoladii imika gacan hadasha geysatana iyaga dambigooda iyo waxoodan biliiska gacanta ku ayado waan daayar waan mutadawca waan soo diyaar garoobay ninka halka jiifa inuu ummadiisa hantidooda iyo lafahooga badbaadiyo xilliga xagaaga waa garanaysaa waa xilliga dabku u badan yahay ciidanka dabdamisu waa jibaad weyn bay gutaanay wax la aqbali kara maaha عقلي وحوها قادن كرنا معه رجع هيجن كافري لا تكسر عوض وسوق من وسوا عرر عيا محوها ستيشن كوجي يحاولوا يكون السودان وقتي سا وجاران أنا محوها أنا نضرب كاسي ومضى يحنتيجه تونا وحيل إن لو أبال جدو الشيت كوجوابي geesta kale wasiiru dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye waxa uu ka hadlay warar ay maalmihii u dambeeyay baahinayeen qaar kamid ah mareegaha internetku isla markaasina waxa uu dignin adag hawada u meeriyay cid kasta oo hunguri kaga jiro inay hadimayso qaranka Soomaaliland website kale oo qaran news waxa soo qoray tikadii berbero oo shufbeesh waxa soo qoray shalay toona dilkii yaraa u dambeeyay Hargeysa oo dhiigu qulqulayo waxaan u sheegayaa warbaahinta ama media ninka caynka sameynaya miyuu noqonayaa mid aad u fiirisaan ha doctor ilama aha nooca iyo wixii la midna talaabo ku qaadan hadii la yiraahdo wixii ummadan aayaheega ka hor imanaya waad kaysanayno محمد شعير وأحمد تيفي قرنك Soomaaliland مقالة Hargeysa